subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warkaa subaxnimo ee warbaahinta qaran ee muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo sheegay in weli baaris ay ku socoto askari iyo saraakiil ka tirsan dowladda oo loo xiray weerarkii Falarais. dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay in ciidamo horle la geynayo deegaanadii markaasi laga saaray ururka al-shabaab. howlgal ka bilowday deegaano ka tirsan maamulka galmudug iyo galmudug oo ka hadashay somalilan oo abaabul dagaal ka bilowday duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool. akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka waa mareykanka oo sheegay xilliga dalkiisa hubka culus oo u diraya waddanka Ukraine. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com. markale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad dhegaysateen qodobadii warka oo kooban iminkana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad dhegaysateen oo faahfaahsan. aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay weerar markaasi markii ugu horreysay weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka lagu magacaabo Falarais ee ku yaala meel aan sidaas uga fogeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo wareysi siiyey telefishinka qaranka ayaa waxa uu sheegay in dhammaan la xiray askartii saraakiisha ee ku sugan baraha kontarool ee laga galo madaxtooyada habeenkii uu dhacay weerarkii khasaaraha badan dhaliyey. ayaa waxaa hogaaminayay taliya xigeenka ururka 43aad guutada 13aad laba xidigle cabdi daahir xirsi waxayna gaareen deegaanada qalaanqal gaancad qurac joomo iyo oo hoos tagta Xiinlabi. geesiyaasha qaranka ayaa ku raad jooga al-shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaana howlgalkan uu noqon doonaa mid sii socda ilaa laga gaaro deegaanada gacanta aysan ku haynin, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan xoogga dalka. howlgalka laga sameeyey deegaanada galmudug ayaa aad u yar marka la eego gobolka shabeellaha dhexe waxaana weli al-shabaab kaga sugan yihiin deegaano badan. aad buu mahadsan yahay halkaas oo faahfaahintaasi soo jeedinayay. saraakiil ka tirsan ciidamada militariga iyo booliska somalilan ee dhowaan ka baxay magaalada laascaanoodna ee duleedka magaaladaas ku sugan waxa ay bilaabeen abaabulka dagaal ay doonayaan inay dib ugula wareegaan magaalada. saraakiisha ayaa la kulmay markaasi saraakiil iyo ciidamo kale oo somalilan kusoo kordhisay kuwaas oo markaasi doonaya inay xoog ku galaan magaalada laascaanood oo hadda gacanta ay ku hayaan ciidamo deegaanka ah oo hubeysan. goobjoogayaal ku sugan magaalada laascaanood ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in si weyn magaalada looga dareemayo abaabulka ay somalilan wado islamarkaana ay u diyaargaroobeen ama ay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan siduu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi hadda ay bilaabeen in dib loo furo badi goobaha ganacsiga magaalada ee ku xirmay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee horey uga dhacay magaalada laascaanood. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada laascaanood ayaa markaasi bulshada ugu baaqay in ay taxadar muujiyaan ayna joojiyaan banaanbaxyada si dib loogu furo ganacsiga iyo goobaha waxbarashada waxaana weli xiran wadooyinka
qaar ee magaalada laascaanood halkaas oo dhagxaan lagu jaray. sarkaal ka tirsan ciidamada militariga somalilan oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dhanka kale waxa uu digniin culus u dilay ama uu ku hanjabay in dadka banaanbaxyada dhigaya ay tallaabo cad ka qaadi doonaan sida uu hadalka u dhigay, waxaana waalidiinta iyo sidoo kale amaba dhalay dhallinyarada banaanbaxyada inta badan dhiga ugu baaqay in ay markaasi dhallinyaradaasi ay ceshtaan, haddii kale ay tallaabo ka qaadi doonaan. waa sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu sidoo kale digniin u diray sarkaal lagu magacaabo faysal falaalug oo markaasi xalay galay magaalada laascaanood, kaas oo hogaamiya koox lagu magacaabo jabhadda xoreynta SSC. waxaad dhegeysateen dhegeystayaal qodobadii warka ee gudaha. akhbaaraadka dibadda qodobka ugu doorka roon haddii aynu eegno, maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in maraykanku Ukraine siin doono hubka baabuurta dagaalka si loo isticmaalo markaasi loogu isticmaalo dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushka. tallaabadaas oo ay khubaradu sheegeen in ay wax weyn ka tari doonto. Bradley waxaa hub markaasi oo xoog badan oo awood u leh in ay markaasi burburiso taangiyada cadowga. waxaa kale oo loo isticmaali karaa in lagula socdo goobaha dagaalka iyo si degdeg ah loo dhaqaajiyo tiro yar oo ka mid ah ciidamada lugta iyagoo bed qaba. hubka Bradleys ayaa wuxuu qayb ka yahay xirmo gargaar ah oo weyn oo dhan 2.85 milyan oo maraykanku u ballanqaaday Ukraine. ku dhawaaqista ayaa soo baxday isla markaasi maalintii hogaamiyaha Jarmalka uu sheegay in dalkiisu uu siin doono gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano Marder si la mid ah markaasi hubka uu Ruushku siinayo iyo nidaamka difaaca hawada ee lagu magacaabo markaasi Patriot. maalin ka horna Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono baabuurta gaashaaman ee dagaalka loo yaqaano AMX-10RC. tallaabooyinkan ayaa muujinaya kordhinta taageerada Ukraine ee Maraykanka iyo markaasi xulafadiisa, kuwaas oo markaasi ka warwareeganayay in ay soo diraan nidaamyada sida markaasi Bradley, iyaga oo markaasi ka baqaya Ruushka in uu ka sii caroodo tallaabooyinkaasi. warkii subaxnimo aad kala socoteen dhegeystayaal warbaahinta qaran ee magaalada Muqdisho intaas ayuu ka gahay. tan iyo intaaynu ku kulmi doono warkankiisa xiga waxaynu leenahay sidaas iyo nabadgelyo. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com.